الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتو عن وناكسن أخيارتا ميلو باد جوجتان كسو دواده برنامج شير او غابان oo uga hadli rabno gabdhaha Soomaaliyeed ee mar walba dhibaatada u nugul loona geysanayo. barnaamijkan gaaban waxaan rabaa inaan uga klibkan yarna uga hadlo gabadha yareed ee maslaxo ee aanan social media ayadoo garanaynin inta la soo geliyay hamil loo sheegay iyo waxyaabo fara badan aysan maankeeda ku jirin markay bartamaha dhax tagtayna la dhahay waxyaabo anshax ka baxsan sameey lagu kalifay inoo markay diidayna $100 la siin jiray way xanaysay markay diidanay shaqada laga soo buriyay waxyaabahaas kale waxa keenayo waa dhibaato dalkeena ka jira mid xigta bini aadamka qof walba meel buu ka baahan yahay meesha uu ka baahan yahayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka baahi tiri kara laakiin bini aadam kaleeto ama nin kale dhalinyaro ah oo rabo inuu YouTube-kiisa ama page-kiisa inuu kala kacsado gabdhaha Soomaaliyeed inuu dhibaato u geysto waa laga wanaagsan yahay gabadhan yar ninkan caloosha weyn le Atoosh maal dhaha Atoosh uu sidoo doono inuu waxaan ku maqlay inuu qabo xaaskiis uu ahaa ahayd laakiin waxaan hadda xaqiiqsanayaa in meesha aysan xaas aysan jirin iyo barnaamijyaas aysan jirin meesha uu ahaa shaqo loo wada tagay Atoosh gabadha si qaab daran ayuu la dhaqmaayay anshax ka baxsan uma uusan fiirinaynin walaaltinimada ninka kale channelka iska lane muxuu ahay isagana ma uusan fiirin micnaha dhaqamada xun ee qaabka daran u geysanaya gabadha walaashiisa ah maraydo cunaysa la duubi jiray iyo hadda kaaba daran markay imaadeen magaalada Nairobi gabadha waxa lagu sameeyay waxyaabo faxisha ah dabaalo baahida bini'aadamka micnaha in waa laga wanaagsan yahay Soomaali Maxamed ugu dambeyn waxaan idinka codsanayaa meel walba joogtiin YouTube-kaas iyo page-kan uu ku qoran yahay durdur oo Atoosh yara ninka caloosha weyn leh iyo ninka kale Xasan meel dhama aqaane ay ka wada shaqeystaan qof walba oo Soomaaliyeed oo follow iyo subscribe u saaray inuu kala cishtaa oo kala laabtaa si uu u dareemo dhibaatada ay leedahay gabar Soomaali ama gabar waashiisa ah dhibaato loo geystay waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad in aad kala laabataan follow iyo subscribe. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.